السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa xogsidde media ee ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo hadalhaynta bulshada. fadlan hadday tahay markii koobaad aad soo boqoto kanalkan ha ilaabin inaad subscribe garayso gambaleelkana aad furato si ay kuu soo gaaran xogta maalinlaha ah ee halkan aan ka soo gudbino. kuna soo dhawaad muuqaalkeena maanta. qodobada aan maanta inahayna waxaa ka mid ah weerar ka dhacay Shabeellaha Hoose u dhexeeya ciidamada Amizon iyo ururka Alshabaab iyo mooto ay saarayeen dad rayid ah oo deegaanka baladweyne Miina kula qaraxday. sidoo kale halka uu marayo kulanka u dhexeeya madaxweynaha Kenya iyo uhura kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dagaal ka socda gobolka Tigray oo ku baahay gobolada dariska ah. haddii aan ku horumarno dagaalka u dhexeeya Amizon iyo ururka Alshabaab, wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan Alshabaab ay wadada u galeen kulanyo ciidamada Amizon ka mid ah oo maraya inta u dhaxaysa Danow iyo Galweyn. dad ku sugan aagga uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegaya in markii hore weerar ka bilowday qarax wadada dhinaceeda la dhigay oo lala beegsaday kolonyada ciidamada Amizon ee dalka Uganda. dabadeedna la maqlay hub culus ee labada dhinac isku rideen. ilaa hadda lama oga khasaaraha dagaalkaasi uu dhaliyay, balse warar ka soo baxay Alshabaab waxay sheegayaan in gaari kuwa qafilan oo hubka lagu qaaday ay gubeen tira askarta Uganda ka mid ahna ay dileen, inkastoo ila madax bannaan oo xaqiijinaya hadalkan aysan jirin. dhinaca kale Amizon wax war lagama hayo oo ku saabsan weerarka ciidamada lagu qaaday, balse gudoomiyaha gobolka Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD ayaa sheegay in ciidamada Uganda ay iska difaaceen weerarka lagu soo qaaday isla markaana ay dileen ugu yaraan 6 ka tirsan Alshabaab. warar kalena waxay sheegayaan inay jiraan dad rayid ah oo dagaalkaasi waxyeelo ba'an ku soo gaareen. dhinaca kale gobolka Mudug waxaa laga soo warinayaa in dad rayid ah la socda mooto bajaaj ay ku qaraxday miina wadada dhinaceeda la dhigay meel aan sida uga fogeen deegaanka Bacadweyn. dad ku sugan Bacadweyn ayaa sheegay in dhowr qof oo dumar la socotay mooto bajaajtaas ay ku dhinteen. mooto wadihii oo soo gaaray dhaawac culus ilaa hadda ma cadda sababta loo beegsaday haweenka la socday mooto bajaajta. dhinaca kale haddaan eegno siyaasadda Soomaaliya, ra'iisul wasaare rooble iyo madaxweyne uhura kenyatta oo kulan ku yeeshay Kenya. madaxweyne uhura kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee Kenya booqashada ku joogay iyo wafdi labada dhinac ka socda ayaa maanta wada hadal lagu xoojinayay xiriirka labada dhinac ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Mombasa. sida ay qortay madaxtooyada Kenya, labada wafdi ayaa ka wada xaajooda dhowr arrimood oo muhiim ah oo ku saabsan danaha labada dal ka dhexeeya oo ay ugu weyn tahay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Nairobi iyo Muqdisho. Kenya iyo Soomaaliya ayaa sanadii 2015 qalinka ku doogtay guddiga iskaashiga JCC. guddiga ayaa wuxuu ka shaqeynaya iskaashiga labada dhinac ee arrimaha ganacsiga, socdaalka, gaashaandhigga iyo ammaanka dalka. intii shirkaasi lagu guda jiray, madaxweynaha Kenya uhura kenyatta ayaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in laga wada hadlo arrinta khilaafka badda, balse war-saxaafadeed ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in rooble uu ku adkaysay inaysan ka hadlin arrinta khilaafka xuduudda badda. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku adkaysay arrinta muranka badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya aysan haba yaraatee wax wada hadal ah ka gelin, isla markaana lagu xalin doono go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Mr. Rooble wuxuu xusay in booqashadiisa ay tahay mid lagu adkeynayo xiriirka labada dowladood oo u dhexeeya arrimo badan kuwaas oo u baahan in laga wada xaajoodo. halka kale dagaalada ka socda gobolka Tigray ayaa ku baahay gobolada dariska ah. falaagada ka dagaalata waqooyi Ethiopia ee Tigray ayaa beenisay inay ka dambeysay weerar shal lagu qaaday xarun caafimaad oo ku taala gobolka Canfarta, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. afhayeenka u hadla TPLF ayaa sheegay in warar ku saabsan weerarkaasi ay yihiin kuwa laga naxo, isla markaana sheegay inay ka qayb qaadanayaan sidii baaritaankaasi lagu sameyn lahaa weerar ka dhacay Canfarta. dhakhtar ku sugan goobta la weeraray ayaa sheegay in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen dhaawacyo culusna ay ka soo gaareen weerarka lagu qaaday xarunta caafimaadka. afhayeenka u hadla maamulka Canfarta ayaa eeday in ciidamada Tigray ay ka dambeeyeen weerar, inkastoo uusan wax faahfaahin ka bixin tirada dhimashada. waxaa lagu soo warramaya in xarunta ay ku sugnaayeen dad ka soo barakacay colaadaha ka taagan halkaas. dagaalo muddo 9 bilood ka socday Tigray ayaa haatan ku baahay gobolada dariska la ah ee Canfarta iyo Maxarta.